nuur cumar waa gabadhii ugu horeysay ee Soomaali Mareykan ah xubinna ka noqotay aqalka hoose ee dalka Mareykanka. Ilhaan waxa ay 4 Oktoobar sanadii 1980 ku dhalatay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, waxaana markii ay dalka ka dhaceen dagaalada sokeeye qoyskeeda ay u qaxeen xerada Dhadhaab. iyada oo 16 jir ah ay u soo gashay in Mareykanka ay u guuraan qoyskeeda sanadii 1995 waxaana ay deganaanshaha ka bilaabeen magaalada Arlington ee gobolka Virginia. isla sanadkaas 1995 ay u wareegeen Minnesota, waxaana 3 bilood gudahood ay ku baratay luqadda Ingiriiska. waxa ay kadib ku biirtay iskuulka Edison High School. waxa ay halkaas ka bilowday taariikh nololeedkeeda Mareykanka oo maanta maraya in xubin ay ka noqoto aqalka wakiilada dalka Mareykanka. waxay ka qalin jebisay jaamacadda North Dakota State University oo ay ka qaadatay shahaadada koowaad ee cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. shaqooyin kala duwan oo hoose ay ka soo qabatay Ilhaan magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul. sanadii 2013 waxa ay madax ka noqotay ololaha kursiga golaha deegaanka Minneapolis oo uu tartamayay Andrew Johnson. markii uu ku guuleystay waxa ay noqotay la taliyihiisa dhinaca siyaasadda, halkaas oo ay ka bilowday geediga siyaasadeed ee Mareykanka. bishii November sanadii 2016 Ilhaan waxa ay ku guuleysatay kursiga golaha deegaanka ee Minnesota, waxaana ay xafiiska la wareegtay 3 January sanadii 2017. waxa ay u tartantay kursiga gobolka Minnesota golaha wakiilada Mareykanka kadib markii nin muslim ah uu ku fadhiyay kursigaas uu iska casilay kuna guuleystay kursiga xeer ilaaliyaha gobolkaas. kursiga aqalka wakiilada Minnesota ee dalka Mareykanka ay ku guuleysatay 6 bisha November sanadda 2018, waxaana ay sidaas ku noqotay gabadhii ugu horeysay ee Soomaali Mareykan ah ee fariisata aqalka hoose ee dalka Mareykanka. waxa ay ka mid tahay Ilhaan dadka uu aad u neceb yahay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo ka soo hor muuqan doona habeenka golaha aqalka hoose ay isku imaanayaan madaxweynuhuna uu furayo. iyada oo arrintaas mar ka hadlaysay waxa ay tiri, farxad ayay noo tahay dad badan oo waxaa jira iigu codeeyay inaan Trump hor fariisto, isaga oo sanadii 2016 gobolkeena ka sheegay inaan nahay dad xun. Ilhaan Nuur Cumar waxa ay u dhaxday Axmed Xirsi oo ay isku dhaleen 3 carruur ah. hadda waa 37 jir, xubin ka ah Koongareeska dalka Mareykanka.